kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale iyo muuqaal kale ugu horeyn haddii aad imika inugu soo biirtay fadlan subscribe inoo saar janalkan sidoo kale la wadaag asxaabtaada warbixintayada muuqaalkan ku eegi doono maxay yihiin waxyaabaha sababa afka in uu shiiro subax weliba qofka marka uu hurdada kasoo kaco maxayse tahay waxyaabaha ugu badan ee keeni karaya xalkase muxuu yahay haddaba si aad u hesho jawaabahaasi fadlan dhugo oo la soco muuqaalkan aan ku horeyne ma ahan arrin lagu farxo in subax kasta aad soo toosto afkaaga oo soo shiiraya ama uraya balse waa arrin ay dad badan kula wadaagaan haddaba ha welwelin dadka intooda badan mar un ayay isku arkaan afka oo soo shiira subaxii su-aashu waxay tahay maxaa sababaa mana la daaweyn karaa haddaba jawaabteedu waa haa haddii aad i su-aasho maxaa sababaa waxaan kugu jawaabayaa waxaa jira dhowr arrimood oo sababa in subaxii uu afka soo shiiro balse labada arrimood ee ugu waaweyn waa afka oo qalalan iyo in qofka uusan si wanaagsan u cadayan haddii aad tahay qof si wanaagsan u cadayda welina afka shiirkiisa uu ku dhibayo subaxii haddaba waxay u badan tahay in habeenkii uu afkaaga aada u qalalo candhuufta waxay habeenkii mas-uul ka tahay in afka ay ka saarto jeermiska xun ee sababa af urka haddaba xilliga hurdada candhuuftu way yaraataa dadka waa ay ka wada dhammaataa afkooduna waa ay qalalaan waxa ay soo toosaan afkii oo aada u shiiraya waa dadka qaar sidoo kale waxaa jira dawooyin sababa af urka in qofka uusan si wanaagsan u cadayan waa sababta kale ee keenta afka oo soo ura subaxii afka waa meesha ay ka quutaan jeermisyada qaar haddii aadan si wanaagsan aadan u cadayan cuntada ku harta ee dhex gasha ilkaha iyo luqyada carabka waxay sababaan urka qaarkood oo aada u ur badan jeermiska afka ku jira ayaa dhex gelayaa cuntadaasi iyo ciridka kadibna isku maalinkaasi waxa uu dhaliyaa urka xitaa marka aad xoogaa aamusnaato waa isku arki kartaa shiir aan loo dulqaadan karin cadayla-aanta waxay sidoo kale sababtaa cudurro afka ku dhaca iyo ilkaha oo jajaba ciridka oo dhammaada iyo afka oo boogo badan yeesho mararka qaar xanuunadaasi way adag tahay in la daweeyo haddaba si fiican u cadayo sidoo kale waxa aad jirkaaga gelinayso waxay sababi karaan af urka subaxi waa cuntada qaar ama raashinka la quudanaya xilliyada qaar in habeenkii inta aadan seexan ka hor aada cunto raashinka urta kulul leh sida toonta yaanyada caydhiinka ah iyo kuwa la midka waxay sababi karaan afka oo soo shiira subaxii xitaa haddii aad cadayato waa suurtagal in shiirkaasi uusan bixin isticmaalka sigaarka ama tubaakada ayaa sidoo kale af urka keenta sidoo kale waxay sababi karaan afka oo iska soo shiira xilli weliba dhammaan maandooriyaasha waxay sababaan af qalal zaa'id ah taasoo dhalinaysa in urta afka kasoo baxaysay ay noqoto mid zaa'id ah ama aada u ballaaran sidoo kale dadka qaba xanuunka gaaska ee loo yaqaano gastrointestinal reflux ama gaad ama dadka qaar ay u garanayaan laabjeexa waxaa suuragal in afkooda uu soo shiiro subaxii sababtu waxay tahay in waxaa caloosha ka hurinaya uu dib u soo celiyo cuntada kadibna uu sababo shiir aada u weyn haddaba sidee loo daaweyn karaa marka inta badan af urka subaxii waa la daaweyn karaa waxaa ka mid ah adigoo guriga joogo balse nadaafadaada ku dadaala iyo in aad beddesho habka aada u nooshahay inaad badiso cadayga waa xalka ugu wanaagsan uguna wakhtiga dheer ee aad uga hortegi karto afka uraya subaxii waxaad cadayeyn kartaa subaxii iyo habeenkii ka hor inta aadan seexan hal mar oo maalintiina in aad ku darto way wanaagsan tahay in aad sidaasi samayso waxay caawinaysaa in raashinka afka ku haray uu bannaanka usoo baxo sidoo kale si wanaagsan u luqluqo haddii aad tahay qof balwad leh sida sigaarka iyo tubaakada si deg deg a waa inaad ku joojisaa xanjada aan sokorta lahayn isticmaalkeeda waa uu daweyn karaa ama uu kaa caawin karaa af urka waa haddii aad tahay qof muddo kadib mar uu afkiisa soo shiiro hana ilaabin in dhakhtarkaaga aada weydiisato daweyn xal weyn u noqon karta arrinkaasi sida nadiifinta ciridka ilkaha iyo buuxinta meelaha bannaan ee cuntada ay geli karto arrimaha qaar waxay u baahan yihiin in qaliin lagu sameeyo si xal waara loogu helo taa waxaa kaga badbaadi kartaa in inta aysan xaaladdu xumaan aada cadayga joogtayso dadka qaba xanuunka gaaska dhakhtarka weydiiso inuu ku siiyo dawo yareynaysa in habeenkii uu gaaska kugu kaco oo cuntadii ay dib kugu soo gudboonaato amaba kugu soo laabato
sidoo kale waxaa dadka qaar lagula taliyaa in ay si toosan oo kor u seexdaan, barkintana dheeraystaan si looga hortago in cuntada ay soo gadoonto oo sababto calool hur. sidee looga hortagi karaa af urka subaxii? intaan loo baahan daweyn, waxaa wanaagsan in marka horeba aad ka hortagto arrinkaasi. waxaad cunaysaa iyo wixii afkaaga gelaya waa muhiim in aad eegto. biyo badan cab maalintii, sidoo kale inta aadan seexan habeenkii biyo cab. taa waxay kaa caawinaysaa in afka uusan ku qalalayn, wayna ka hortegaysaa afshiirka subaxii. ka fogow cuntada shiirka kulul leh in aad adigu habeenkii xilliga aad seexanayso, sida toonta, yaanyada, kafeyga iyo waxyaabaha qaar. xitaa mar haddii galab ay noqoto, in aad joojiso aad ayay u qurux badan tahay. cuntada caafimaadka leh ee isu dheelitiran waa midda ugu wanaagsan ee caafimaadka guud iyo carafta afka ee subaxii keenta. iska daa maandooriyaasha, waxay ahaadaan ha noqdaan qaadka, shishada, tubaakada, sigaarka, taabuuda, dhammaanba jooji. halkaa oga har si aad uga badbaado dhibaatada inta badan haleesha afka, maadaama afka uu yahay meelaha lagu tiriyo in bulshadu ay aada ugu wanaagsan tahay ama sawirkeedu uu yahay